الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الله أكبر الله أكبر ولله الحمد. سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وعلى أصحاب سيدنا محمد. وحساك جودهان بلوغة ضرر الدنيا مسلم لجنة كده صلاة عيد الأضحى أو قيمة ونوقف حديدي ومدى مسلمين تمال أي شوجان با مدحونا قرن كسومالي لان مدن أحمد محمد محمود سلانيا أيا كمانان كمدها شعب كودغان عاصمة هرجيسا كلتو كده صلاة داسي عيد الأضحى مسجد جامع وين مقالة هرجيسا وحنا كوهلين مدحونا سوماليان oo la tukaday salaadaasi gudoomiyaha xisbiga midnimada iyo horumarka ee kulmiye ahna musharaxa madaxweyne ee xisbigaasi kulmiye doorashooyinka soo socda xubno ka tirsan golaha wasiirada Soomaaliland xildhibaano kamid ah golayaasha qaranka ee kala duwan taliyaasha ciidamada mas'uuliyiin kala duwan oo xukuumadda ku jira iyo dadweyne kale oo aad u tiro badan oo masjidkaasi kula tukaday madaxweynaha qaranka Soomaaliland iyo mas'uuliyiinta kala duwan ee golayaasha qaranka ee qarankani leeyahay. markii laga soo baxay salaadaasi ciidul adxaa waxa khudbad ku saabsan qiimaha ay maalintani leedahay iyo sida ay ummadda muslimiinta ugu weyntahay masaajidkaasi ka jeediyay imaamka masaajidkaasi. يوم فضيل وعيد شريف جليل رفع الله قدره وأظهره وسماه يوم الحج الأكبر يجتمع فيه الحجاج بمنى يستكملون مناسك الحج ويتقربون إلى الله بالثلج والعج. madaxweynaha qaranka Soomaaliland mudane Axmed Maxamed Maxamuud Silaanyo oo halkaasi ka hadlay ayaa hambalye iyo bogaadin u diray guud ahaanba ummadda muslimiinta gaar ahaan shacabweynaha Soomaaliland meel ay joogaanba. madaxweynaha ayaa ku dheeraaday maalintan iyo qiimaha ay ku leedahay ummadda islaamka waxaanu shacabweynaha Soomaaliland u soo jeediyay in ay mid ahaadaan oo ay meel uga soo wada jeedaan wax kasta oo waxyeeleynaya qaranka Soomaaliland ee tisqaday. mudane Axmed Silaanyo oo ka hadlaya arrimahaasi ayaa waxa uu yiri sabada ciid al-fitr ciid al-adha ilaahay waxaan ka barinaa inuu khayrkeeda ina siiyo ilaahay waxaan ka barinaa inuu dalkeen iyo dadkeena ka dhigo dad walaalo ah oo soo jeeda nimcada iyo khayrkeeda ilaahay siiyo aynu ka barinaa. waxaan leeyahay meel joognaba dad wada jira wada shaqeeya meel ka soo warjeesta diintooda iyo dalkooda u shaqeeya noqon ilaahay naga dhigo ayaan leeyahay. madaxweynaha Soomaaliland ayaa markii uu ka soo baxay salaadaasi uu shacabka caasimada Hargeysa kula tukaday masjid jaamaca weyn ee bartamaha magaalada Hargeysa waxa uu ku soo guriya noqday qasriga madaxtooyada Soomaaliland waxaana madaxtooyada Soomaaliland soo gaaray si ay u salaamaan qaar ka mid ah shacabka ku dhaqan caasimada Hargeysa kaasoo madaxweynaha Soomaaliland oo mid u gacan qaaday shacabkaasi soo booqday ee doonayay inay salaamaan isaga iyo mas'uuliyiinta kala duwan ee golayaasha qaranka ee waqtigaasi ag fadhiyay. Axmed Saki Daahir Xasan iyo Cabdullaahi Cali Suudi telefishinka qaranka Soomaaliland magaalada Hargeysa.